wasaaradda tamarta iyo macdanta waxay ka mid tahay wasaaradaha ugu da'da weyn qaranka Soomaaliland gaar ahaan marka la yiraahdo waaxda macdanta oo taariikhda marka dib loo bilaabo ilaa sanadkii 1939 laga bilaabay sahan macdaneed dalka waqtigii gumaysiga Ingiriiska ka bilaabay ilaa muddada wasaaraddu magac kastaba ha noqoto mar wasaarad macdan iyo biyo hal la yiraahdo laakiin wasaarad soo jirtay oo soo jirinayay wasaaraddu waxay ka mid tahay wasaaradaha dakhli soo saarka ee qarankan uu leeyahay ay wasaaradani ka mid tahay ee dakhliga soo galiyo wasaaraddu waa wasaarad farsamo waxayna qarankan u xil saaran tahay horumarinta soo saarista maamulka macdanta iyo tamarta iyo batroolka sida ka muuqata structure-ka wasaaraddu waxay ka kooban tahay 5 waaxood waaxda macdanta waaxda batroolka waaxda tamarta waaxda maamulka iyo waaxda qorshaha waxay leedahay wasaaraddu 2 sector ama qaybood oo ah qaybta maamulka shaqaalaha iyo qaybta la yiraahdo miidiyaha iyo xiriirka bulshada inta markaan ka soo dago batroolka mashruucaasi waxaan sahan ku sameynay 3,000 oo kiiloomitir oo isaga gudbaya 6 gobol oo kamid ah gobolada waaweyn ee wadanka oo ay kamid tahay gobolka Sanaag Saraar Togdheer Daadmareed Maroodi Jeex ilaa Hawd ay isaga gudbayo 3,000 oo kiiloomitir kuna dhow gabagabay marka rajo aad u wanaagsan maadaama wadankeena lagu tuunsanaa inuu batrool ku jiro rajo aad u wanaagsanina imika ay ka muuqato gabagabana uu ku dhow yahay muddadii aan joognay wasaaradda waxaan ku guuleysanay in aan 6 magaalo oo magaalooyinka waaweyn ka mid ah Soomaaliland loo sameeyo solar iftiimiya magaalooyinka oo la shito solarkaas oo qiimaha qaaliga ah ee dabka aan ku helno imika hoos u dhigi doona mustaqbalka soo socda 6 magaalo waxa kamid ah Boorama Gabiley Sheekh Burco Buuhoodle iyo Baran oo imika mashaariicdu intooda badani gabagaba ay ku dhow yihiin ayaan ku guuleysanay مسؤولين دولتين كسبلين أما ساعين ما كسبلين أما مالك ما تهاي يعني سيدو دبوا في الروسيا أسوي مرشة هي آلية دم سلامية وهنكون سيدنا سيدنا رو سلامية شغاله وزارة المعدة تمرت قارئها مالك ما تها هنكون دبوا بقوليو متدر سوى الشقيل ني وحبنا عن صوت القوانين بعدين بسرعة جديدة ما أنت ولا شيء مالشان شرفت أن يسووني وحوي واحد الوريجين نقول رجل حكي أن تدرس السنة كسوة هي وزارة المعدة يتمرت فحنوتي هو رئيسنا يا إن السلام محنقة أعليو مدحويه هراء تجمعية سوماليلاند ودار أحمد محمد محمود سيلايو وأن آدي أبوه محنقيو هنا سلطان دونا مدحوينها وصلتي هربانة الصوماليلاند جاحي إقبالي كان تطبع سنة هرتي آدي أبوه هدعيليا شرفت أي كرامة يسيي إن أدركي مالك ما تهويو مالك ما تهوشغيو بدرالير وأن مالك ما تهويس شغيو هذا قالوا بليليا اسمها كود وزارة المعدة تمرتا موتي مو عليه اسمياشة واسم وحدات موتي وزارته وآدي هذه الأسرة شقية وزارة توصل سنوات وحماية ما تهبوا وضعي وحقوة موتي كيف موتي كلاقاتي إلى المالك ما تسوق أرسل وزارة ما تشوفه وحقوا هالنقيا شرائط بصورة ومارياش وده الشغلات التالية قاركود خاصة المجال وزارة شركة الكنال iyo hay'adaha kala duwan ee caalamiga ah oo soo shaqeynay soo shaqeynay oo qayb weyn ka qaatay aadna aan uga mahadcelinayo wax qabadka iyo waxtarka muuqda ee quruxda badan inay maalmaha qaybtooda ka qaateen aad iyo aad ugu mahadcelinayo waxaan ku xigsiinayaa inaan hambalyo iyo duco
ujeediyo madaxweyneena cusub mudane muuse biixi cabdi iyo dowladdiisa cusub. waxaan ilaahay uga baryayaa in xilkaas ilaahay ku noqtay ku asturo horumarkaas noqtay madaxweyne wareedada gaarsiiyana ay halka kasii qaadi doonaan. وحنا الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. أرتدى شرفت له سويتشرتا بلحظة كلا دول الدولة لحظة قضاياشة يوحنا قضاياش الدولة هيئتها عالمية هالمفردية شركتها كلا دول لا قارة بترولية قارة تمر ما كرونطبا dadweynaha kale ee sharafta leh martida ah halkan nala jooga shaqaalaha wasaaradda heerarka kala duwan leh dhammaantiin waxaan ugu salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan idinka mahadnaqaynaa kasoo qaybgalka ay kala soo qayb gasheen munaasabadda. intaa markaan ka gudbo waxaan dirayaa runtii wax badan oo khayr qabaa oo rajo iyo waxqabad muuqdaba leh baa halkan uu ka sheegay wasiirka iyo agaasimuhuba. runtii waan qirayaa wasaaraddu inay tahay hormoodka xagga waxqabadka wasaaradda marka la eego xagga ama dhismaheeda markaa uga jeedo sheegi maayo guryo qurux badan hadee guryo runtii guri wanaagsan oo qurux badan oo kuwateersanaa oo la dhisay oo waxqabadka ku jira waa jiraa waxaase kasii qiimo badan waxaa aada uga qiimo badan sida loo dhisay nidaamka wasaaradda shaqaalaheeda tayeynta shaqaalaha capacity buildingka ka dhacay. runtii waxaan garayaa inaan u imi wasaarad kamid a wasaaradaha ugu adag ee ugu dhismaha wanaagsan wadanka. waa ilaahay mahadii inaan kusoo beegno xilligan wasaaraddan sidii uu xuseen sheegayna madaxweynena ugu mahadnaqay bar hutaankeeda. waxaa runtii maragma doonaa in dee hawl culusi laga qabtay wasaaradda waxaa hor yaalla waa mas-uuliyad culus bay haysaa runtii oo malaha dadka in koobay og tahay mas-uuliyadda wasaaraddu haysaa waxaa weeyaan laba xaalad oo isugu jirtaa. mid laga filayo inay waddanka usoo saarto dhaqaale waddanku ku kaco horumarna ku gaadhay maaha wax sida mas-uuliyad sahlan maaha. dhaqaale ku yeelan mayna oo waddanku ku horumari maayo cashuur yaroo adhigeena iska sii maalinba la joojinayo cashuur laga qaado iyo cashuur u dhigata dakhli kasoo gala waddanku ku yeelan maayo runtii awood ku yeelan maayo horumar ku yeelan maayo laxaad ku yeelan maayo haddii birkid leeyahay dee inuu ka mid noqdo caalamka dowladaha ka jira siday u seegi wuxuu ku noqonayaa dhaqaale adduun buu ku yeelanaya adduunkaa waxoogu markaa fududaynaya haddii uu maamul wanaagsan waxaa looga fadhiyaa wasaaradda in ay waddanka ka dhigto suurtageliso in waddanku helo dhaqaalaha aynu filayno oo bitroolkaasi dee ugu weyn